waa qaybtii toddobaad ee barnaamijka taxanaha afmeer. qaybtii lixaad ee hore waxa ay noo joogtay sheekada qaybtii koowaad ee horjooga maxamed cabdulaahi ayaanle oo loo goran og yahay Abayle iyo xilligii uu al-shabaab ku soo biiray iyo sheekooyin kale oo qoto dheer oo aad ku daawateen qaybtii hore ee lixaad ee isla Abayle. qaybtan toddobaad ee barnaamijka afmeer waxay ka bilaabanaysaa waayihiisii imaanshiyaha magaalada Gaalkacyo maxamed cabdulaahi ayaanle, kulankii isaga iyo Jeeri ay ku kulmeen magaalada Gaalkacyo iyo sida isku barteen, shabakadihii uu Gaalkacyo ka hergeliyay muddadii uu joogay. waxaa kale oo qaybtan aanu ku dul istaagi doonaa ama uu uga warrami doonaa sheekadiisa xirashadii ay xirteen mulkiilayaashii geela ee uu ganacsiga kala dhaxeeyay, lacagtii al-shabaab isaga ay ku goysay, gaar ahaan horjoogihii ugu sarreeyay amniyaadka xarakada al-shabaab maxamed xaashim muumin abudayib oo isagu lacagtaas markii hore ka amaahday. sheekooyinkaas iyo kuwo kaloo qoto dheer oo la xiriira xilligii xagjirnimadiisa, sida uu u arko Puntland gacanteeda inuu ku jiro, waxa uu filanayo, dareenkiisa guud iyo arrimo kale ayuu qaybtan toddobaad uga warrami doonaa maxamed cabdulaahi ayaanle. ka horna Jeeri aqoon hora iskuma aanan lahayn. nacnac baan ka iibsaday, waa ag istaagay, wuxuu ila ekaaday ninkan inuu nin reer koonfur yahay. kadibna qaabka aan leenahay iyo nidaamka saddex maalmood inaan sahankii aan bartay baan ninkii kusoo noqnoqday. waa 2019 bishii 7 weyn. maalintii dambe waxaan ku dhahnay Jeeri ka war xaalad nin waa fiican ayuu yiri. ka war xaalad ma sha Allah. nin dadka la soo tuuriyo la soo qaximiya ka mid ah. dadka la soo tuuriyo la soo qaxiyay ka mid ah. halkii aan isku weydiinay Jeeri reer hooyadiisa anaga ah. reer hooyadiisa anaga ah. anagu hintira reer mareere. bas halkii aan isku weydiinay nin baa ilaa kaatay noocaasa. waa bas halkii aan iska jaan qaadnay adoo rag isku imaado shir waa taqaanaaye. 3 maalmood kadibna arrinkii isku soo hadal qaadnay. muddo markaan 3 maalmood 4 maalmood aan la joogay baan dhahay ka war xaaladdaas. wuxuu yiri hooshas waa ku jira waana wadaaba ee aniga waxa iga dhignaa nin ka howlgalo baraxle ma noqon kartaa adig. waxaan ku dhahay waxa ii sheegtaa oo kaliya guri aan cayaalka dejisto. shaqadaas waa wax aan u baahanayba. waayahay buu yiri. wuu ikaxeeyay 3 maalmood markii la sii joogay oo asagana iska sii hubiyay 9 bay uu sii qaadatay. wuxuu ii geeyay ninka loo yaqaan magaciisa maxamed abudayib loo yaqaan buu ii geeyay. maxamed xaashe muumin abudayib buu ii geeyay oo madaxa sidii Usmaan xagga boosta ka ahayo kala aan ah. 5 baxda iyo 5 kala baan is aqoon. amniyaadka waaweynka ah. alla ilaahay waxaan ku dhahay meeshaan waa meel ii anfacday, aad baan ii anfacday runtii. markaa magaalada boosta joogtay oo waaga saaxiib ma ahayn ayadaba dhinac hadii la dhaho abaal iga soo gashay oo markaan baalash la ahay shaaxe iyo marfashadii aan u geeyn jiray baan dhahay hawreer halkaas aan joogaa ka war xaalad. waxay jiray waa maqlay inaa halkaa joogtid. waxay taqaanaa saraakiisha sarsare oo reer Puntland shaaxe ka gadan jireen. waa islaan caan ah khayaal la dhahaa. kadibna waxay tiri nin baan kula soo hadlaaye ninkaas nambarka qaba. nambarkan soo moodid nambarkayga mobilkayga habeenkii xaafadiisa aga soo haajir way nambar kale oo nin saaxiibka leeyahay wata aan ku hadlaa. kadib waxay tiri ninkii ay soo wacay xaaladda ka war fiican ma sha Allah. maxamed yarami aha maxamed yarawi xaaladda ka war fiican ma sha Allah. gaariga hadda soo baxay yiri oo xirad dayax oo hadda jooga. xagee joogta xirad dayax baa hilib ku gadaa. gaariga soo raac buu
gaariga soo raac markuu yiri gaarigii baan raacay waa soo baxay boosaas tabtii ayaan ku galay boosaas haddaan galay boosaas markaas la iska qabanaya oo Soomaalida iyo Carab loo kala baxay dadka Carabta lama qabto mugtay Sacuudi markay joogaan tarxiilku waa socdaa waxaan damcay inaan soo haajiro oo soo guuro waxa si fiican martay Soorii soo dhaweeyay Cabdi Cali oo taliyaha nabad sugidda Puntland ah boosaas u joogaa wuxuu yiri niyow waxaan ku sheegahaa درس هناي نكاس واحد بدن بدرس هن شقدي شغلكم له وهو يقانا إنك عادي هلك قدناي وأنا يقانا مركز يروح مكوش هذا وحاسة مسا عرب كسكجوجي ونيو أنا ما شاف كجورة يقول هاي نكاس صاحبنا هن قال كائن ورقة يا وحيرنا وقال كائن ما هالكاد كسيجوج هالكي بس كسيجوجي إلى قدر تسوي مقطع جروب كإجر السنغال كعيو وإماذا سدح بلاد لو بل كذب توصل أولو صوري هل كاسم توصل معنا هل كان كشقيامة وحان ربا جيري إنكاس إنا إسكو حريريو وإسورو واسي صوبتا مرهدا قاعد دولدت قشيد وحالو فهمايا sirti inay fakato cid ku aaminaysa ma jirto mar haday dawlad gacanta ku dhigto xagaas waxa ka noqotay nooc kale waayo ha aaminka yaraanay qofkan waxa la aaminsan yahay mar haduu xaga galo dhibaatooyin farbadan inuu la kulmaayo kadibna wax walba daadinayo baa loo aaminsan yahay masaajidkii baa waxa arkay wijicid isiisa واواي صوت مكاس ugu haye masaajidkii cid wiji isiisa waawaay ninkasto ay bari gaarba laga baxaa waa ka war xaalad fiican waa lu dhoofiyay waa soo noqotay bali leeyahay waxa qoraniyo habarinen ay ka soo nimar raqsoma haday soo diinta walaal soo kuma ahan kholo kale diinta walaal ku tiina jirtaba warag gal kacay sidii jeeri sal iyali tabtay ku soo wareeyay gaalkacaya waxaan ka shaqeeyay 10 sano oo soo dhaafnay ilaa 12 sano baan gaalkacaya waxaan aga shaqeeyay si inna caadi ahaan koonfurta gaalkacaya baan qaabilsanaa sirdoonka laamaha amniga sababtoo ah waxaan sameeyay tiin kale jeeri baan la tashtay maxaashi baa wuxuu yahay adeegaya keena dhanka lacagta wax bixinta hubabka marka ma sakhirna ninka laamaha amin oo haysta magaciisa laanta sahanka iyo sirdoonka waxa laga rabaa hubkaas hadii xataa ifan lala baxo asay madaxiisata howl kasto jiro ina hirtid maba ahaba mana heeraysid hada hirtid خلاص وكو dhamaat sababtoo ah hubka la baxaya ki wasiirkii amniga booska ni joogay idinka oo kala aan ahaayo amniyaadka u weenayeen amiirka ugu weyn waxa ka dhaadhacaysa ma aha ninkaantii nin u soo galay ee hubka inoo qaato kadibna dawladda uu ku wareejiyo xagga kala soo dagaalamo oo raba marna ka ma aaminayo hubkii waa laga dhacay marna dadkii baan waayay laga yeeli maayo weena shaqada dhaxda u xirataa hubka aad ilaalsataa markii hoosh lagu soo fuli waa ina wareejisaa hadana inta dhimata Allahu naxariisto wax la soo tirko karama dad wax geystay inta ba isku jiraan
waxaan leenahay inta dhimatay afalla ama salaf tiin kalan abaabuli dhowr tiin baan isku abaabuli tiimamkii baa tirbateen aniga jeeri waa ka madax banaana markaa jeeri aan waa simannahay markaa magaalada si fiican baan u bartay nin aan wada simannahay baan maxaashan hoos tagnaa labadeena aniga laakiin jeeri ima amro markaa ana amarka bixiya wax badan ayaan geysanay macna mar waxay ku dhacday wax walba aan noqotay caray ku dhacday iyo anagoona diinta islaamka u dagaalameena bayna ku dhacday waxaan noqday 2018kii hilibla ugu weyn baan noqday gaalkacyo baan hilibla ugu weyn noqday marka hilibkii waxaan waa isku wadaa mugta marka ana fangareen inaan bixi karo isku maleey macna waayo waxaan haystaa Soomaa maqal waxa la dhahaa xoolaha waxa loo qaataa amaaho kadibna balin baa la qabtaa muddada inta la gaarin inta shaqadaas wax kaga imaanayaan halka wax waa ka bixin kartaa dabiri kartaa halka waxaan gadan jiray 20 neef oo geela 15 neef oo geela maalintii ma aha 10 neef 10 maalmood bay ku dhamaanay maalintii neef geel baan qalaa 10 neef marka maalintii aan ku dhameeyo muddo baan ninkan iga rabaa 10 neef lacagtoodii lacag baan iska hayaa marka oo dad leeyahay lacagta aan u maleeyay lacagta dadka ay leeyihiin baan halka haday wax soo raagaan baan ka dibri jiray halka iyo gaalkacyo markii hool ay soo fuliyaan ilaan ragii ada wax diray Soomaalida amarka lagu soo sii amarka wuxuu ka soo baxay maxaashi adug soo sii hooshaas jirta halkaas wanikaasti waa sarkaal nikaasti wax dhibaan nikaasti waa maxkamad gudoomiye wax walba markii lagu soo siiyo tusaale ah markii lagu soo siiyo ay hoosha ay soo fuliyaan waxa la siinayaa gadoonsiin wax la dhahayo markaasiti ayakii lacag macnaha la siin karo ilaa 15 milyan $500 adu dollar ada qaadanay laakiin ayaka kaashkaas ay danayaan oo la siinayaa ayaan ku sii dabraya kaashka ana dollarkan soo qaadanaya gacanta waa 10 kii gaari wadan waa 15 milyan buu leeyahay $500 bay u dhigantaa 400 gacanta koobaad kaas la siinayaa 10 milyan buu leeyahay kan kale 5 buu leeyahay gaarigii waday hadii labadu gaari ay ka maarmaan oo labadaba hoosh is fuliyaan ay ka garanay 15 ko si ay u qaybsadaan adu 15 kaasa ninka kula balaminka ina gadoonsiisid hadba sidoo dollarka yahay dollar xiliga wuxuu joogay 230 330 430 meelaha soo joogay waxay u dhigan kartaa 450 430 meelaha ay ka qaybsanay ma fahanti ayadoo hooshi sida aan ugu jirno baa waxaa dhacday aad aan kala xumaaday kharax baa wuxuu ka dhacay Sooba oo anaga aan geysan Sooba markuu kharax ka dhacay waxa ku dhamaatay hooyooyin maata sida caruur masaakiin gaargacan la waxa la sheegi kara Soomaali cid walba way fiirsatay taas ayaan waxaan kala hadlay maxaash soo waxaan ku dhahay maxaa dhacay wuxuu igu jawaabay maalintaas wuxuu yiri waxa u baahan tahay dhaqan celin waa maalinta aan la yaabay maalinta waxay ka dambeeyay dib u gorshaan sameeyay ano sidii hor aan ku noqon baa waxaan sameeyay ina waxna bixiyo waxna wixii kale liiso amro iska hubiyo meeshii waxaan dareemay inayna markaan ay oolinba diin oo tahay dameer lagu shaqeystay inaan meesha ka noqdo baan dareemay macnaha in nin lagu shaqeysanay aan ahayo dameer ah
waa meesha ka dareemo waayo xanuunka hooyooyinkii miyuuna ku taabanin dadka meesha maantada ku dhinteen ayaan dhahay mogta wuxuu ugu jawaabay dhaqan celin ayaa u baahan tahay kadib hoosh markuu ii diro waxaan samayn jiray waa ka caga jiigid jiray wuxuu damcay anigii inoo si kale waan u baqay ninkaan inuu wax ii soo diro waxaan iska dhigay sideedii horan ku soo noqday caadi baan iska dhigay marka aniga isu dareemay kadib aan waayi meel aan u cararo raantu raam aan taagnahay oo ninkaan hadal iga fakadeen xageenu cararaa waa may hadda isdhiibto dawladda iska dhiibtana de hilib la lagu ogyahay hadda dawladda iska dhiibtid maxaa noqonaysaa atiraadid nidaamku way fahmayaan oo soo dhiib atiraadidna ama hadana ay ku sii xiraan ama anoo ku jira baa waxaan dhahaynaa taadiis ka sii wado halkaygiin ka sii bilaabta hadana waxay ahaatay socoto baa waxaa dhacday lacag waa xanuunsaday waxaan ku dhahay niyahow ana waa xanuunsanahay qaabka aad dadkan kula shaqayn lahayd keenso nin aan ku wareejiyo laguma baahno marka horamkaa shakiiba marka wuxuu iga qabaa lacag gaaraysa $5,080 igama qabo asiga 3,000 iyo xoogaa bay iga qabaan inta kale ana igu maqantay oo khasaaraha lacag talii xiri doona waxay noqotay $5,080 waa baxay garowan aadi garow haddaan aadi xanuunka waxaan u aaday Cabdicasiis baan waxaan u aadiyay ishaas dhaawacii gaaray oo goojooyin qaldan lagu shubay Cabdicasiis abeenadan ka soo noqday ninkii waa iga maarmay oo iga tashtay anoo yaabano dhahay nihow ninkan muxuu ku sameey doona ama ku jiro waa alxamdulillah waa li xiri naagihii lacagtii igu lahaayeen iyo dadkii geeli lacagtii igu lahaayeen baa igu soo baahan waxay nasiib la dhahay waxa iga fiican inay magaalada igu sii daayeen inay xiraan baan ay fiicnaatay niyad run ahaantay sababtu waxay tahay ninkaan mar hadaa meeshaan aad ka baxdo wax calaaqaad aad ku leedahay ma jiraan waa baxay waxaan galay gaal shiraha gaal kacay xabsiga weyn gaal kacay la galay anoo barteeda ku jira baa waxay sameysay dawladda Puntland wax allaala wixii magaalada gaal kacayo amiir ahaa oo ahaa amniyaad wax dili jiray wax qarxi jiray wax u tilmaamay kaalishay bay ku guuleysteen dad socda jeelka ugu imaaday nimba waxaan ku yiri war maxaa dhacay hebel maxrin yahaa jeeri maxrin yahay jeeri wuu xiran yahay buuri aanun isku sheegaynin wiilasha ii imaadeen aykan isku sheegaynin laakiin aan fahansanaano way dhahay jeeri wuu xiran yahay mar hadduu saaxiibka jeeri xiran yahay oo arkay oo ii sheegeen waxaan nacbeystay hadana xiritaanka oo jeeri lil xiri doono waayo jeeri lama siman baan ahayn inuu isoo sheegay isku ma hayo wixii waa fashilmeen hadday aanu cararsanayo xabsigiga aan islahay xabsiga ku wanaagsan ba hadana jeeri xiritaankiisa li soo sheegay kurba kale igu sii noqotay kurba xirig ahaan kama fikireen tolo jeeri hadduu ku soo sheego hilib loo ku haysat waxa cadaanaya meeshii inaad noqonaysid fashilan haddii fashilintidna waxa dhacaysa dadkii ninkii waa xiran yahay haday ay maqlaana banaanka saa ku baxda halis ah magaalada marka xabsiga waxay u imaaday magaalada gaalkacay oo dhan la soo xiray baa maqlaa hadal ah cadeen socota ay imaatay afar nin oo cadeynaysa in magaalada la soo xiray dadkii u waaweynayeen bay ii sheegeen wiilasha
wiilashii ayaan su'aalay war waxaan ku dhahay war maxaa dhacay maxaan la soo xiray waxaan la soo xiray bay dhaheen waxaan ahayn baan la tilmaamay oo maxaa ahaydeen anagu waxaan ahayn bay dhaheen dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkooda hooyo degan shaqaysanaya oo haddii hooyooyinkooda wax u diraan ma aha ta kuwa shaqaynaya ma aha laakiin way shaqayn karaan oo shaqo kale bay qaban karaan laakiin shaqada aad u aragtid ma aha shaqada ay shaqaynayaan shaqada oo culimadu way qaban karaan waa dhalinyaro fudfudud waa dareemay inay ay xisbi ka tirsan yihiin markaa saa waxaan ku dhahay ka waran ayagii baan dhahay ka waran ka mid ma tihiin mid baa wuxuu yidhi adeer waanahay ha qarinay sheeg labana qol kale la sii geliyay mid baa igu sii qoslay ayaga ani waxay i haystaan hilib leh marka uma oga inaan ahay amiir oo jeeriga ayaka ay sheegayaan nin la siman inaan ahay ma oga markaas ayaa waxa dhacday waa qoslay waxaan ku dhahay jeeri xiran yahaa mar labaad waxaan ku dhahay jeeri xiran yahaa maxaa ka wada jeeri xiran yahay waxaan ku dhahay jeeri hadduu idin soo xiray ama idinka soo xirteen jeeri waxaan ku dhahay idinka ka qaldan may wallaahi waxay dhaheen anaga ma soo xirine dawladii Puntland baa waxay soo dooratay nin cirib tiraba waxyaalaha noocaas ah amniga magaalada waxa la dhahay boqolkiiba 80 waa soo celin aad buu u mahadsan yahay baan ku dhahay maadaama ay talafar ay ka baxday waxa u fiican aan dhahay haraaga harina inay isdhiibaan baa u fiican baan wiilashii kula talin sababta ah maxay tahay ninkaas anu ma aqaan weligeena ma arkin la sheegay hadda hadduu hortaagan ma aqaan ninka waxa la dawladii wuxuu la koobsaday Said Abdullahi Dani ninkan waxa magaciisa waxa la dhahaa muumin waxaan dhahay mar hadduu soo xiray khayr Allah siiyaan ku dhahay sababtoo ah kuwa lacagtay bay bixin waayeen aan ku dhahay waaba ku kacsanay marka horeba baniyada ka dhahay wiilasha uma sheegin anoo taladii ku tala tumaayo dawladii waxay keentay inay gudaha bay ugu soo gashay 8 bilood anoo xiran in loo yimaado hiliblan ku xirnay deem baan ku xirnay kiis madaniya jeeri saaxiibkeeda la soo xiray jeeri wuxuu ninkaasaytiin waa nin la mid ah magaalada wax dhaqaaqa la waayay wixii oo dhan howlgalkii shaqada wuxuu fulin dhahay dhan waa xiran yihiin nin baa ku guuleystay waxaa dhacday waa la soo waday niman baa yimaadeen way wareysteen ka war xaaladda ma sha Allah niyow waxa lagu sheegay ka war ma noqon weligii ma arkin mana noqon doona ku dhax waxa tihiin ma aqaanay inabad galiya ay idin nabad galiya hilib laan ahay shaqo ku male afaar noocaasana ma ba aqaan email aad ka sheegaysan ogow hadda 2008 soo bilaabay war ma fahanti waxa dhacday shan maalin markay iga maqnaayeen baa waxaan soo galay waxaa lagu imaaday xabsi ali soo qaaday barbakas baa lagu soo qaaday gaariga daawaarada barbakas loo yaqaan waxaa la keenay meel aan tilmaami karin hadda baa la keenay lindhaha laga soo xiray meel aan joogi meel kale waa kala aqoon waayay waraysa la leeyahay hadda markay fool timaado budo qarsi dhamaa wixii haday ay satal gareysayeen ay fishilan yihiin waxa fiican in ad afalla ama salafa tiraad wixii dhacay ma taqaana ninkan waxa leeyahay waxa la tusay amiirkaygu u weynaa maxaashi ma aqaan ma ku dhahay
ninka ma taqaana ha maxaa ku taqaana hilible 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 wax kale kuma taqaan may waa dareensanahay waxay yihiin waana ogaa inaysan waxba ka dambeeynin waa ogaa waxaa dhacday haddii la itusi nimanka magacyadoodii ma aheen oo la itusay sabiradoodii waxaan dhahay ma aqaan markay ma aqaanteedu ay badatay kadib dhindhaha ka xirnaa dhindhaha waa laga furay magacada markii la sheegay sabir ayaa la tusay sabiradii waxaan ku dhahay hebel ma taqaanaa ma aqaan amiirka ugu weyn oo lacagta aan ka soo qaadi jiray baa marka hore la tusay anoo garanaya waxaan ku dhahay ma aqaan ma taqaanid miyaa may ninkaa ma taqaanaa hiliblaan ku aqaanaa 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 wixii oo dhan waa inkire dhindhaha ayaa laga xiray kadibna nin aan garanaya oo shaqada si toos aan isku wadnay oo nin la dhahayo maxamed cali kalaay baa lii soo geliyey asoo dhindhaha ka xiran waxaa lagu yidhi uriyaa waa ilmi maqlaysaa haa sheekaysta adigii saaxiibkaa way soo baxeen baan isyiri aniga sida ila muuqato ma aysan baxin dadkii meesha joogeen dhindhahan ka xirnaa abeenada albaabkay gabu siiyaan iswaraystawaryaa baa nin dhahay ayadoo dadkii oo dhan halkaa ay ku sugan yihiin farsaambul waxay ila tahay marka aan qiyaaso askarigii markaa ay keenay inuu albaabkaba jug siiyey oo kadibna dhahay sheekaysta oo dadkii aan ilii keenay inay su'aalaan oo ciidamada siyaadida ay abeenada barta ay ku sugan yihiinba waxaan ku dhahay si gaar ah oo hoos ah oo aan markaan dareemay inuu albaabka xiran yahay waxaan ku dhahay kalaay ma tahay waa sax buri kalaay maxamed cali kalaay waa ah adi ma tahay maxamed cabdullaahi ayaan lahaa niyo waxaan dhahay horta sabira ayaa la i tusay sabiradeen waa inkiray say wax u jiraan xaaladdu waa sidee wuxuu yidhi no xaaladda waa dhinjar xaaladdana waxay xataa ay maraysaa ninkii ugu weynaa qaraxa gaalkacyo samayn jiray amiirkii ugu weynaa khaasin alturaabi oo baraxli qarax ku xiri jiray meel walba oo gaalkacyo asaga loo doortay ayaa xiran waa arkeen ku dhahay muuqaalka laga tusi markaas waxaan dhahay waa yaab dadka aan arkiyo dhan haddii la soo xiray waa maxay yaa shaqeynaya yaa xarakada shabaab u shaqeynaya say wax u jiraan anoo yaab ila tacjabsan oo ninkiina hadalkii ii soo celiyo dhahay niyo ani ma aqaan cidii shaqeynaysa aslan indhihii ku xiran yahay bay dhaheen waa kula joognaa adeer dhindhiha laga furay joog dadkii meesha way taagan yihiin way fadhiyaanba markiiba wax kacay mal aan waxaan u qabaa inay baxeen marka 5 tiimood markaasaan waxaan go'aansaday maadaama ay xaaladana dhinjar ay tahay oo meel xun ay marayso oo haddana aan sii fashilmay mar labaad iyo mar saddexaadba inaan wax walba markaan aan saarin oo cadeeyo waxaan ku dhahay waa sax waan ahay waan ka mid ahay cadeyntiyo faahfaahaysan oo hadday warka madaxdiiska dhigi baan hadeer si dhabta iyo si saxsan ban nagu dul maraya waxaan ku dhahay dadka ay itusteen waa dad ad soo socdeen qalbigan waxaan ka dhahay tolo yaa u tilmaamay wax allaala wixii amiir ahaa iyo ciidamadiisii ninkaas ku xukumayay haddii isku xiran yahay waa arin aan la yaabay runtii 18 sano ilaa 16 sano waxaan ka shaqayn jiray sida tan maanta sanadka ay dhacday gaalkacyo weligeed maysan dhacin waxaan isirey maxaa qaldan dad ajaanib oo qabuuro siyaada ah miyaa Puntland ku soo kordheen baa qalbi iska dhahay
ma aha arrinkan waa arrinka weyn taas waxay caddaynaysaa howlgalka la qabtay la tacjibka iyo la yaabka oo igu sugan bay runtaa caddaynaysaa macno ma leh ha dhacdo al-shabaab aniga markaan ka faaloodo wax badan ayaa la shaqeeyay wax badan haddaan la shaqeeyina wax badan ayay wanaajiyeen wax badan way xumeeyaan anoo doonaya diinta inaan kor u qaado mar aan ku dareemay inayna dadkaan ay wax mabda iyo diin ayna haysan oo masaakiintii caruurta iyo nin kasto ka badso inay tahay arrinka markaan ogaaday anoo u arkay dadkaan inay dad nooc kale yihiin shantaas magacyadooda markaan kala qaado nin kastaba kow waxaa ka ah maxamed cabdullaahi abkow waxaa laba ah maxamed cali kalay waxaa saddex ah ismaaciil daa'ud jiirow oo loo yaqaan xarfaanay waxaa afar ah xasan muuse cumar oo loo yaqaan xasan niini waa loo yaqaanaa shantaas ayana baa anuu xukumi jiray kadib waxaa dhacday lacag inaan aniga iga soo daahdo kadibna aan lacagii ummadda aan ku sii tiri koobo oon ku sii bixiyo lacagtii baa igu go'day deenkii baa igu go'ay anoo wax badan tabanaya oo xaalka caadi aysan ahayn oo meel aga maarmo aan waayay baa waxaan ku dhahay inta isu imaatiin tashta aniga waa xanuunsaday ishaasaa laga qabtay waxaan aaday garoowe markaa abeenadan garoowe aadayay risaaladii waa wareejiyey waxaan ku wareejiyey maxamed cabdullaahi abkow oo amiirka guud ii soo amray ninkaa igu wareeji buu yidhi mar allaal markaan wareeji baan xisaabtay waxaan ku dhahay lacag intaasan leeyahay oo adiga xaggaada amarkaada u ahay howlgalka intaas la fuliyey inta waan idin soo dhaafay aan shantaas shirkadood aan howlgalka 2008 ilaa 2019 wax la fuliyey waxaan inama caadi ahayn ayay dadkan ay shaqeeyaan saasun abaal aan ku waayey inta badan oo waliba aan waxigana xagooda galay oo waxna iga soo noqonayneen baa waxaan ku dhahay lacag $5,800 leeyahay si wuxuu ugu jawaabay adeer macaan lacagtaas waa ka baxday mar kale lagu siinaya uu imeermeeray bartii ayaan ku dhaqaaqay waxaan aaday waxa imeermeeriyay magaciisa maxamed xaashi muumin abu dayib amiirka guud gobolka mudug u jooga xarakatu shabaab mujaahidiin markaa wax iga soo socon aan xanuunkii igu siyaaday baa waxaan aaday magaalada garoowe haddaan aaday meesheedii hilibka ayaan xiray dadkii ayaa waxay arkeen nin baxsaday runtii nin gaalkacay ka tagay garoow uma baxsanayo dadkii hilibka lacagta igu lahaayeen shantii bay waxay arkeen nin baxsaday oo lacagtii la dhuuntay waa imaaday waxaa lagu xiray saldhigga bartamaha anoo u arkaayo kheer baa waxaa lagu gudbiyey gaalshir habeen waxaan dareemay xaalad amni inaan ku jiraba sababtoo ah nimankaan ninka ka baxa waxaa u sharci ah inuusan daaqinba dib dambe lasoo afjarba gabigiisa waayo hadduu baxo sir baa baxday hadduu joogana sirti caadi bay u joogtaa anoo u arkaaya baa waxaan arkay markaan xirnaa muddo 8 bilood ayna nafar iga soo booqaneen oysan ii imaanin oo lacagtii ummadda igu lahayd xataa si xaaladda ay tahay amiirka uu isan dhahin baa waxaa meesha igu imaadeen 4 wiil oo la soo xiray 2 qol ayaa la geliyay 2 qolka igu soo gashay 2 wiil aqoon caruur ahaan baan u lahaayay oo xaafaday ka tirsanaan Israac waa wareystay waxaan ku dhahay warka xaaladaha war waxay dhaheen anagu xaaladaas baan la kulannay kadibna
baaris baan nuu sameeyey waxaan nahay waa cadaysanay anoo garanaya baan 3 maalmood daba socday oo ogaaday inay yihiin markaa kadib bay wiilashii ii cadeeyeen ilaa abtana maanta anay iskuma aan sheegin waxay ii og yihiin hilib leh dadkoo dhanna hilib la yaqaan cayaalka waa Cabdullaahi Faysal iyo Barqad baa qolligu soo gelin amjoonka waxay dhaheen arrinkaas aan la kulunay anaga wax saasa maba geysanba kadibna wixii way fashilantay waana la soo xiray anagana waxaan ku soo tuuray jeeri markii la dhahay aniga arinta la ila baxday waxaan isiri alla ilaahay adna meesha kama maqnayd waa tagi doontaa baan go'aan hoos ka hariiqday inaan tagaayo ogaal baan ku ahaay xabsiga cid igu soo booqanaysay ama igu imaanaysay midna ma jiro anoo hantideeda wixiga maqayn oo horna go'aan ay gaaray baa hadda waxaan ku sugnahay gacantii dawladda Puntland gaalkacyo tiimanka ka howlgalaan haddii loo baahdo in macnaa tababar la soo siiyo xardheer ku dhow xardheer ay tababar ka soo qaataan kuwa xardheer ka baxaan haddii xoogaa la garan waayo Muqdisho waxaa loo bedelaa buulfalay iyo tortoro kadib ayuu ku casriyaysan bay ku imaanayaan shan kale ku sii sugaysaa saasa isku bedelnaa marna meesha ma faaruqdo waa ka arintaas markaa wax kaga sheego shanta shirkadood oo aniga mas'uulkan ka ahayo oon sirtoonka iyo saxanta aan u ahay oo kadibna amiirka ku xigaan u ahay ay ka shantaas oo ay kana ay sii dambeeyaan oo shan kale ay sii hooseeyaan inta aan ku sheegay shanta nin aan ku sheegay baa faahfaahin ka siin karto waana weydiin kartaa shan bay xukuntaa shanta xukunto bay ka warmi kartaa aniga shanta aan ka warmaayo magacyadooda waa ku sheegay waxay yihiin waa ku sheegay waa taa howlgadada ilaa 20 ilaa 25 bay sameeyeen oo dad ah oo rabaxday oo madax jabin ku rabaxday anaga waa madax jabinka bay qaabilsanayeen shirkadeeda 25 ka ay baraxday ay ku bireen oo ay ku xabad ay ugu dhufteen oo magayseen madax ay ku jabiyeen ma aha runtii mid la soo koobi kara sababtoo ah qofka maanta hadduu qadeeyo oo maanta wax ku qadeeyo baasto oo bari baasto ku qadeeyo saakon baasto tikar makroon oo ku qadeeyo ma kala garan karo laakiin wuxuu garan karaa qofka ugu horeeyo uu dili buu sheegi karaa markaan xoogaa aan isku dayo inta aan ilaawsan yahan kullee dadba iga dambeey doono oo soo fuuli doonaan ay sii faahfaahin karaan ninkii godka cusbada lagu dil jiray godka cusbada ninka lagu dil jiray sida Cabdalla Awax Cawareer markii wadada la soo dhaafo ninka lagu dil jiray waxa kamid ah talihii istakiin oo ciidamada dawladda federaalka iyo waxa Puntland u dhaxaysay ninka ahaan jiray isku darta gacanta waxa lahaay kalaay baa lahaa shirkadda kalaay baa lahayd waxyaalo badan baa jira waxaa jira ninkii cagaar weyn lagu dili jiray magaciisa xasan weyne wax aan la soo koobi karin waa runtii inta aan ka xasuusto kulle nin 8 bilood xirnaan waa ahay waana xanuunsanahay inta badan intay gacanteeda ka bixeenna waa 1 sano oo hadda aan ka maqanahay aniga oo kadibna aan gacanta Puntland aan ku sugnahay wixii iga dambeeyay ayaka kulle faahfaahintooda iyo wax laga weydiin karaa waa in xiriirino nafar ma maqnaba waa ka waxa dilalka ay station kadaas shanta shirkadood oo shanta kuntooshan la qofa adoo aan wax ku ahay mudada xirmay ko sidii loo bisala qiyaasta markaas hawlgallada dilalka ay sameeyeen qiyaastii dilalka ay sameeyeen markii la qiyaaso 25 bad xaggaas ay u dhaafaysaa
laakiin yaa sheegi kara sida neefka anaga waxa u bireeno hilibkiisa hada maanta markaan 20 neef oo kale anaga iibsado la bireeyo neefka ma taqaana sumud hebel soo saar hadii loo biyaa taqaana waa noocaas oo kale kala ma taqaanid ilaan waxaan waa wax la caadaystay oo shaqo laga dhigtay oo lagu socdo waa ka boqol inay gaarana suurtagal ah xataa waayo bishii waxa dhacda 2-3 dil baa dhacda oo mas'uuliin oo madax iyo wax u badan tahay ganacsada iyo doctorin dhinaca Puntland aniga kama howlgal jirin okay runtii horta dawladda Puntland wax badan ayaan ka soo shaqeeyay kaalkacyo iyo Boosaaso markii la isku daro 17 sano ilaa 2009kii 8 ilaa 2019kii kulle waad garan kartaa farqi weyn ayaa u dhaxeeya intaasna qof igu yaqaan inaan hilib la ahay moogiye qof kale oo sheegi kara ma jira waxaan takhasus weyn aan u leeyahay oo magaalada Baran aan ku qaatay sahanka iyo sirtoonka baan ku qaatay magaalada Baran baan ku soo qaatay waxaan leeyahay runtii hadii dawladda Puntland kulle aniga nin wax geystay baan ahay dhibaatooyin far badan ilaahay baa caafin kara oo dadkii ay caafin kara mooyee ilaahay xataa ima caafin karo waan ogahay aanu dhibtaa geystay hadii ayka ay dhahaan dawlad ahaan dawladda federaalka iyo horta dawladda federaalka iyo dawladda Puntland waxaan ka codsanayaa maadaama qof gafay oo dhibka iyo waxyaalahaasna ay ku kaliftay aqeeda inuu fahmay aqeedadiina ay la balaaratay dhan lacag ay isku bedeshay oo nooc walba aan u garto waxaan codsan lahaa inay cafis aniga naf ahaanteeda ay ii fidiso umada ila xirana inay u fidiso waan jeclaysan lahaa hadaysan inoo fidinina kulle mar walba anaga waa kullu nafsin daa'iqatul maut waa xukuumanahay oo mar walba dhiman lahayn waana dhimanayna qof walba noolna inuu dhimanayo ogaal buu ku yahay hadduu waqtiga intaan ku ogaan alxamdulillah rabbil alamin waxaan jeclaysan lahaa inay isii deerin oo igu toogtaan arinka aan geystay aawdiida anaga waa naqana aqaabta aan leeyahay waa dil wax kale agama fadhiyo kama sugay Puntland inay sii deyso wali runtii waxaan ku sheegayaa ani Puntland inay sii deyso ma sugay sababtoo ah haddii sii deyso xataa oo magaalada uu sii deyso in shacab caadi laga dhigo waxaan ka badbaadeenin xisbi aan ka soo baxay baan ka badbaadeenin waxa ii fiican sida aawdeeda marka anay dilba anay ii fiican ba aan run aantay nafsadeed markaan ka hadlo waxaan kula talin lahay dawladda oo iga dardaarana oo si fiican aan mar labaad hadan aan ugu celinayo oo iga dardaarana dawladooyinka ka howlgala Soomaaliya oo dhan walba leh Puntland iyo Galmudug iyo Soomaali federaalka iyo koonfur galbeedba nabad sugidda in la siyaadiyo baan u sheegayaa sababtu maxay tahay gaari ordaayo technica oo socda dadka way garanayaan ninkasto aqal leh in lagu soo socdo dareemaya laakiin sirdoon iyo CAD iyo markay tahay nabad sugid qofna qof ma fahmay hadda arinkan Puntland ka dhacay waxa soo afjaray CAD haday CAD ay noocan u shaqeyn lahayn Puntland waxay ku jir lahayd waxay waa nooc kale waayo asaga booliis wax kale ma aha hore inuu qaato carruurta kala celimayo wax kale asaga uma joogaba waxaan leeyahay marka CAD ha siyaadeen nabad sugid ha siyaadeen baan leeyahay dardaaran baa iga tahay intaasna waxay iga tahay dardaaran iyaga bor ku dhacayna ma bayrin karayaan iyaga bor ku dhacayna ma bayrin karayaan buusan wada baran alquraha ka eekaha inta been ka sheegaha igu socdo baaqaha buusan wada baran alquraha ka eekaha inta been ka sheegaha igu socdo baaqaha